magaalada muqdisho waa dhaqaaqday marka waxay ku jirtaa waayaheedii ugu fiicnaa waqti rajo ah ayaa jirtay haddase waxay ku jirtaa waqti ka mid ah waqtiyadii ugu quruxda badnaa magaalada waxa iga dambeeya aad arkaysaan waxaan ku suganahay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xeebta Liido ama xeebta degmada Kaaraan ayaa ku suganahay halkan maanta waxaa laga dhex dhigayaa mid ka mid ah xaafadaha ugu casrisan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xataa bariga Afrika xaafadda waxaa la yiraahdaa Beral Beach Village ama xeebta dhulka xaafadda la yiraahdo waxay saaran tahay dhinaca xeebta ee degmada Kaaraan waxa halkan maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhagax dhigi doona dhismaha xaafadan oo la qorsheeyay inay ku noolaadaan dad gaaraya ku dhawaad 100,000 oo qof waxaana laga dhigi doonaa guryaha ugu dhaadheer magaaladan iyo sidoo kale xaafado kale oo caadi ah sidoo kale waxay noqon doontaa magaalo dhameystiran oo laga helayo isbitaaladii goobihii waxbarashada suuqyadii iyo sidoo kale yaadiya amniga gudaheeda laga heli doono waxay kala noqon doontaa